بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي دنبه او وناكسن وميزان ظاهر محمود تيانس ممبر سيلفر لاين ديستريبيوتر oo jooga magaalada Muqdisho waxaan caadini salaamaya dhamaantiin inta groupka ku jirta waana soo dhaweynayaa meel ka soo joogtaan qof walbana insha Allah waxaan u rajeynayaa inuu caafimaadkiisu ilaahay caafimaad siiyo muraadkiisana qof walba uu leeyahay Allah siiyo sidii caadiga noo hayd caawana waxaan sii wadan doonaa maxaan ku raday hawlaheeni baan sii wadaynaa oo caawa waxaan sii wadaynaa qayb kamid ah wax soo saarka shirkadda hadda ka hor qayb kamid ah shirkadda ayaan soo qaadanay macluumaadkooda waxaan soo sheegnay shirkaddan inay alaabta ay soo saarto loo isticmaali karo maxaan ku raday 4 dariiq ama 3 dariiq loo isticmaali karo ama 4 wado loo qaadan karo loo isticmaali karo alaabta wax soo saarka كو waxa loo isticmaali karaa wax soo saarka shirkadu ay leedahay wax la yaqaano toxin ama cleansing qofka bini'aadanka dadku san ogsoonay saddex buu qaybsamaan qayb waa qayb caafimaad qabta dadna waa dad xanuunsan qaybna waxa weey qayb bukaan socod loo yaqaano hadaba shirkadda wax soo saarkeega waxa loo isticmaali karaa saddex qaybood oo ku aadan dadka saddexdan oo u qaadan karaan wadada koobaad ee alaabta loo isticmaali karo waxa weey wax loo yaqaano toxin cleansing inay shirkaddu inay alaabtan maydho waxaan ku raday qashinka jirkeena ku jira inay maydho dhaqdo ayaa lagu talagalay because jirkeena qashinku wuxuu ku galaa siyaabo kala duwan wuxuu ku gali karaa air pollution ka wada xumaatay smoking qiiqa biyaha contaminated water ka noqday cuntadana lagu soo bacraamiyay fertilization wax la dhaho all this kind is waxay sameeyaan jirkeena inay qashin ku abuuraan bay sameeyaan therefore shirkadani alaabta ay soo saarto waxay ku habboon tahay qashin soo saarka jirka inay ka nadiifiso dhamaan qashinka jirkeena gala oo ay yaraateen dust particles ka ama amuda ama ciida waxa loo yaqaan bataha amuda dariiqa soconaysa jirkeena san ogsoonay wuxuu leeyahay daldaloolo ayuu leeyahay dhamaan waxaas jirkeena galaan qiiqan baxay jirkeenu gala therefore waxaas systemkiina ay xumeeyaan marka hadaba shirkaddan wax soo saarkeegu waxa qodobka koobaad ee isticmaalka alaabta wuxuu ka bilaabmaa inuu qofku jirkiisa dhaqo oo ka dhaqo dhamaan wixii gale toxinki ahaadan hawo ama qiiq ahaadan ama noqotaba dawooyin aan soo isticmaalnay dhamaan waxa la rabaa inuu jirkiisa ka dhaqo therefore shirkaddu waxay haysaa qalab ama product ku habboon ama dawooyin ku habboon inuu qofka jirkiisa nadiifiyo taasna waxa loo yaqaanaa Jitosan baa marka caawa insha Allah waxaan qaadan doonaa training loo yaqaano Jitosan ama product loo yaqaano Jitosan ayaan qaadan doonaa hadda waxaan eegi doonaa Jitosan soo arkaysan waa caagada weeyaan ayaan eegi doonaa waxaan kaloo insha Allah ta'ala si wadana hadaba Jitosan taas haddaan history-geega eegno xogaha ama taariikhdeeda Jitosan is a compound that's found in seafood Jitosan waa compound ama waa dawooyin laga helo seafood waxa laga dhaxlaa badda laga helo Jitosan badda laga helo seafood ba laga helo seafood markaan maqalno kulay kalluun bay especially in crab and prawn waxa laga helo kalluunka loo yaqaan crabs and prawn dabarka iyo lafaha kalluunka ayaa laga sameeyay baashan oo kalluunka ayaa laga dhaxlaa oo kalluunka badda ku jira laga sameeyay sidoo kale as per traditional Chinese herb by yellow book loo yaqaan Juanzi sida buuga Chinaha dhaqameedka loo yaqaan Juanzi ku egg Juanzi waxa loo yaqaan waa buug dalka China ay leeyihiin oo waagi hore traditional dadkii hore ay daabaceen oo laga tixraaco dawooyinkii la isticmaali jiray qarniyadii traditionalka ama qarniyadii hore it's very effective in cleansing toxin from the body hadaba Jitosan waxay aad ugu habboon tahay sida laga soo xigtay dadkii hore dawooyinka isticmaali jiray Chinese-ka sida laga soo xigtay geedaha isticmaali jireen Jitosan waxay ka dhigan tahay waa dawo ku habboon toxinka inay jirkeena ka saarto killing toxin inay ka nadiifiso jirkeena qashin saarka inay ka saarto Jitosan is a fiber kind of food Jitosan waa fiber kind of food waa cunto jirka sifaysa fiber waxa weey caloosha maydha dhaqada leeyahay sida heeda iyo qamandiga garowga waxa loo yaqaan maxaan ku raday fiber food hadaba ingredient-geega ama waxyaalaha ku dhex jira Jitosan gudaha laga helo sidaan ku arkayna xagan waa kalluunka noocan baa laga sameeyaa crab and prawn kalluunka baa leeyahay marka waa kalluunka badda ku jira faraha badan weeyaan hadaba the main ingredient of the Jitosan waxa ku jira Jitosan gudaheega waxa weeyaan jitin budo waa kalluunkan ama waxa loo yaqaan fishka oo la engejiyay kadib la tumay oo laga dhiga budo kalluunka budo laga dhiga loo yaqaan ya la yiraahdaa jitin therefore waxay sameynaysaa Jitosan taasi marka la budeeyo kalluunkii budo laga dhigay wuxuu noqonayaa jitin buu isku bedelaa budo ayuu isku bedelaa marka waxa ku dhex jira gudaha ugu jira waxa weeyaan gudaha ku jira waa jitin waa budada weey hadaba Jitosan bari xiriirka u dhaxeeya Jitosan dawada la dhaho iyo jirkeena maxay yihiin waxay yihiin Jitosan is a 6 element curiyaasha jirkeena ku jira waxa koow ka bi kalluunka amisar waxa koow ka maxaan ku raday calciumka kuwa
waxa ku xiga biyo kale waa elementida jirkeena ku jira muhiimada iskala way therefore jitosan waa 6 element waa curiyaha lixaad ee jirkeena ku jira the only fiber with the positive charge in the wall one positive charge baashan waxa weyn animal fiber waa animal ba laga sameeyay jitosan tan soo sheegnay kalluun ba laga sameeyay ama malay waxa uu taqaanaan a positive charge one positive that means waa kalluun bada ku jira oo laga sameeyay one positive therefore wax kasto negative ku jira jirkeena waa soo saaray ka dhigan tahay awood bari jirkeenuna can eliminate wuxuu saara toxin element from the body jirkeena uu iska saara qashinkood the lengiskeena nadiifiya ama waxa loo yaqaan lengiska beerka mayna hurado sambabada ayaa qashinka saaro jirkeena ka saara but laakiin it will take time years waxay qaataa waqtiyo badan bay ka qaataa jirkeenu qashinka uu iska saara actually waa muhiim u saara jirkeenuba laakiin waqti bay ka qaadataa jitosan is a natural detoxifier waa qashin saare dabiici jitosan waa qashin saare dabiici weeyaan oo jirkeena waxay ka saaraysaa dhamaan waxyaalo artificialki oo dhan ee jirkeena galay ayay awood u leedahay inay ka nadiifiso maadaama ay tahay positive charge maadaama ay tahay baashas maadaama ay positive tahay wax kasto negative oo jirkeena ku jira way saaraysaa